eeg muraayadda waa halkudhigga sheekadan. Maalin ayaa shaqaalahoo dhan waxay gaadheen xafiiska, waxaana ku dhegsanayd warqad xambaarsan talo aad u muhiim ah. Waxa ku qornaa: shalay waxaa geeriyooday qofkii noloshaada horumarkeeda iyo weliba horumarka kumbanigeena ama shirkaddeena caqabada ku ahaa. Shaqaalahoo dhan baa aad u yaabay. Waxa ku qornayd inuu geeriyooday mid ka mid ah shaqaalaha oo isagu horumar ku ahaa naftaada ama noloshaada iyo weliba nolosha kumbanigeena oo dhan. Shaqaaluhu way wada eegeen, mar way murugoodeen oo waxay aad uga murugoodeen in qof ay shaqaale wadaag ahaayeen oo iyaga ka mid ahaa inuu geeriyooday. dhinaca kalena waxay dareemayeen farxad ah in uu dhintay qofkii caqabada ku ahaa horumarkiisa. Waa qof kasta oo shaqaalaha ka mid ah isagoo dareemayay in hadda kadib uu ka bixi doono caqabadaasi ahayd ama qofkii caqabada ku ahaa maadaama uu dhintay uu horumar u tallaabsan doono. waxa iyaduna fariinta la socotay: waxaan kugu marti qaadaynaa inaad nagala soo qayb gasho aaska qofkaasi dhintay isaga oo yaala qolka jiimka ee shirkadda. Dhammaan shaqaalihii way ogaameen oo waxay ku urureen halkii ama qolkii uu yaalay meydku, iyagoo oo isku dayay iskuna cidhiidhsanayay bal inuu mid kasta gaadho halka uu yaalay naxashka uu meydku ku jiray oo markaasi u muuqday. Shaqaaluhu way iscidhiidhiyeen, midba midka kale ayuu jiidhayay, mid walibana wuxuu ku dadaalayay bal inuu gaadho meydka iyo weliba qofka naxashka ku jira. Waxay u hamuun qabeen bal inay arkaan ama ay ogaadaan qofkan caqabada ku ahaa qofka uu ahaa. qof walibana isagoo oo dareensan inuu jiray qof caqabad ku ahaa horumarkiisa ayuu doonayay markan bal inuu wejigiisa sii arko intaan la aasin. cidhiidh badan oo jiray ayaa waxa ay shaqaaluhu ku dadaalayeen kuwa ammaanku inay dadka kala horaan oo ay nidaamiyaan. buuq badan baana ka dhashay. ugu dambeyn qof kasta siduu ugu dadaalayay inuu gaadho buuqa dartii waxa ay in badan ku guuleysteen inay gaadhaan meydkii ama naxashkii la lahaa meydka waxa ku jira qofkii horumarkaaga caqabada ku ahaa. mar qura sanqadhii, codkii iyo buuqii iyo sawaxankii meesha ka socday ayaa mar qura istaagay. meeshii mar qura waxa ay noqotay jabaqla. waxa ay la yaabeen qofka uu yahay meydku. waxa ay mar qura ka shoogeen ama ay la yaabeen oo fajiciso ku noqotay waxa ku jiray naxashka. waxa naxashka ku jiray wuxuu ahaa muraayad. marka ay eegeenna iyagoo ay iska dhex arkayeen ama qof waliba uu isagu naftiisa ka dhex arkayay. waxa kale oo ay arkeen fariin ku dul qornay naxashka, taas oo ahayd qofka noloshaada iyo nolosha shirkadda caqabada ku ihi waa isla adiga. sheekadaasi ayaa ahayd mid cajiiba. fariintaasi ayay la yaabeen. taas ayaa mar qura joojisay saxmadii iyo buuqii meesha ka jiray. dadkuna waxa ay la yaabeen sida uu u yahay ama u raadinayeen qofkii noloshooda caqabada ku ahaa inay isla yagii uun meesha ay isku soo arkeen. fariinta meesha ku dul qornayd ee ahayd ama xambaarsanayd qofka noloshaada horumarka u diidani waa isla adiga. waxa ay noo sheegaysaa oo ay noo tilmaamaysaa inaanay nafteenna aynaan bedeli karin aynu inagu isbedelo, inaanay shirkadi bedeli karin ama jaamacad iyo aqooni bedeli karin ama waayo aragnimo aynu helnaa aanay marna nolosheenna bedeli karin ama waayaha iyo duruufaha kala gedisanay aanay nolosheenna bedeli karin ilaa inagu aynu bedelo. horumarkuna inoogama imanaya cid kale iyo qof kale oo kula jeclaysanaya oo kuu hadiyeynaya dariiqa guusha ilaa adigu aad dadaasho oo aad naftaada ka adkaato. bal in adiga naftaadu ay tahay horumar la'aantaada ama ay tahay cadowga horumarkaaga, waxaad arkaysaa naftaadu waxay mar kasta jeceshahay waxa aan dantaadu ku jirin: dhaldhalaalka, hurdada, seexashada iyo socod la'aanta, dadaal la'aanta iyo inaanad waxba qabsan oo na tabcan. waa waxa iyadu ku faraxdo, laakiin adiga dantaada maaha. soo haddaba si aad horumar u gaadho, naftaadu cadow kuguma aha. waxay sheegaan khubarada cilmigan ku takhasusay in qofku lagu garan karo marka la ogaado ama shakhsiyadiisa lagu garan karo waxyaabaha uu qabto, sida uu noloshiisa iyo waqtigiisa uu maareeyo, laga garan karo qofkani halka uu mustaqbalka gaari karo. si aynu nolosheenna u maareyno, horumar u samayno, una dhididno tacab badan iyo weliba daalna aynu u gaadhno, waxaan u baahanahay inaan nafteenna ka adkaano. ogow, nafteenna ayaa ah cadowgeenna koowaad.